isku soo noqosho wanaagsan halka aad videogan ka daawanaysiin waa Dr. Hashi Network. Maanta waxaan duubayaa videoga qaybtii saddexaad ee jilba xanuunka. Qaybtii koowaad waxaan uga soo hadlay rheumatismada ama knee arthritis-ka. qaybtii labaad waxaan uga soo hadlay oo isla videoyadaas jilba xanuunka la xiriirta ACL tear. qaybtan maanta waxaan uga hadlayaa waxa loo yaqaano meniscal injury. waa qaybtii saddexaad. Marka dadka qaybtii aan hore ila socon, and we can zoom here. qaybtii aan hore ila socon YouTube channelkayga waa kan Dr. Hashi Network. markaad soo gasho subscribe ha ka hilmaamin, videoyadana like garay, video badanaa ku jira. jilba xanuunka qaybtii koowaad waa rheumatismada, waa kaasa jilba xanuunka part 1 ku qoran rheumatismada. qaybtii labaadna ACL tear, waa kana jilba xanuunka part 2 ACL tear. maanta waxaan duubaynaa qaybtii saddexaad oo meniscal injury. meniscal waa maxay? meniscal sida caadiga videoga halkan sidaad ka arki kartiin waa C-shaped diskigaas. waa diskiga jilibka qaybta kor ka imahayda iyo qaybta hoos ka imahayda oo shanshada ah kala celiya. ninka xaas kala celiya ayaa loo yaqaanaa meniscal. isagoo kor laga jaray waa kana saa C-shaped, waa saas u wareegsan yahay. marka waxaa dhacda injurygu ama geesu ka dilaacaa ama dhexdu ka dilaacaa, meniscal injury la yiraahdaa. waana muhiimadiisu waxa waaye waa shock absorption sidaan sheegay, sida dhabarka dhiskiisa oo kale labadaas lafood u kala celiya inaysa istaaban, waa aad u muhiim u yahay. marka ay timaado calaamadaha la dareemo marka uu dhacayo oo ama dhacdo ama jilibka twist garaydo, bobbing sound ina sharqan ka maqashaa laga yaabaa, swelling iyo stiffness uu leeyahay, pain uu leeyahay waliba marka jilibka wareejaydo kale, difficulty straighting, jilibka lugta saa uma kala bixi karta. calaamaha lagu garto ku mid yahay meel ku loo garooba jilibka, feeling through the knee is locked in place when you're trying to move. meel lock ku noqonaya ma kala bixi kartid jilibka. marmarka qaar waxaad dareemaysaa give away waliq inaad tiraahdo sidii ACL tear-ka markaan kasoo hadlaynay waxbaa maaragta ku dhegaya. marka ay noqoto treatmentiga, marka ay noqoto waxay ku xiran tahay sida uu maaragtay xaaladiisu sida ay tahay, ma wax yar oo injury yar oo dilaac yar ama fantax yara, mise waa tear weyn. hadduu wax yar yahay conservative care-ka sida physiotherapy inuu qofku shaqadii ka nasto iyo baraf saaro iyo kaalmatiya daawa uu isticmaalo, anti inflammatory inflammationka ka yarahayda, waxyaalahaasa uu maaragtay u shaqeeyo oo ku fiican. haddii uu weyn yahayna waxa waaye waa surgery sameyn. marmarka qaar waxaa dhacda in dilaaca keliya maahane, waxaa dhacda haddaan kusoo laabano qayb yaroo isaga ka mid ahaa tay go-day waxay ku dhex jirtaa dhiskiyadan. marka meelay hadba istaa ku noqoyda. marka xaaladuhu ay noocaas yihiin oo wax ku dhex go-an yihiin way nadiifiyaan, qalliinay sameeyaan, surgicalay sameeyaan, repair la yiraahdo, way nadiifiyaan, way soo xaaqaan, macnaha repairkaasay sameeyaan. marka xaaladiisu day ama daran tahay ama wax ku dhex go-an yihiin oo nadiifin u baahan yahay, mar walba waxa waaye waxay ku sameeyaan qalliin. marka ay noqoto diagnostic sidaa lagu ogaadaa, kasakow calaamadahan iyo xanuunkan iyo bararka iyo waxyaalahaas kasakow MRI lagu ogaadaa. waa sidii ACL tear-ka oo kale. raaja ma soo qabato meniscal injury. inta badan wuxuu leeyahay laba gees oo medial iyo lateral. midka gudaha soo xiga oo lugta gudaheeda kaa xanuunaya, markuu gudahaas jilibka uu kaa xanuunayo waa medial meniscal injury la yiraahdaa. markuu banaanka kaa xanuunayo jilibkuna lateral meniscal injury la yiraahdaa. marka markaan test garayno kale oo gacanta ku test garayno waxaa kamid ah waxa la yiraahdo joint line tenderness. meesha jilibka jointskiisa uu ka go haddaad saa uga taabto ouch uu leeyahay qofku wuu boodaya. marka laakiin definitive diagnosis-ka uu ugu fiican waa MRI. MRI marka wuxuu sheegayaa xadadka uu la egyahay dilaacu ma weyn yahay, ma yar yahay, ma dhowr meelood u gaara, ma waxaa ku dhex go-an oo qashina ku dhex jira, waxaasoo dhan MRI uu sheegaya. marka waa muhiim inaad diagnosis saxa haysato si aad daaweynta iyo keerka aad u ogaato. daawadaas qaada ama sidaas yeel kuma dhihi karo maadaama wixii aan online hoon qofkii anigu aana test garayn, laakiin videoda aan soo gudbiyaa waa educational. markaad kala fahanto oo jilba xanuun si guud dadku u yaqaanaan, laakiin markaad kala fahanto inuu rheumatism ay keeni karto, ACL tear oo xidid banaanka oo dilaaca keeni karo, meniscal injury uu keeni karo, waxaa kuu fududahayda inaad si saxa dhakhtarka aad u tagto, wax ugu sharaxdo, aad diagnosis-ka uu kuu sheegana aad fiirido, tiraa kan miya mise kan. educationku waa muhiim. marka waxaan idiin soo gudbiyaa waa educational content, maadaama qofkii hor fadhin waxaas exactly ku haya kuma dhihi kara, laakiin waa educational. at least idea aad ka helaydaa waxaa intaasoo noocoo jilba xanuun inay jirtaad ogaanaysaa. markaas ayaad maaragtay meeshii saxda ahayd iyo dhakhtarkii saxda aad haleelaydaa.
Party 4 oo soo socota waxaa jirta qayb oo la yiraahdo maaragtay bakery system oo jilibka gadaal ka barara xagasha halkaas barar yar broyer oo probiyada oo ka gasha markay bararto inflammationka saxaradan oo dhan u yimaada iyada lafteedu jilba xanuun way keentaa. waxaa noo soo socoto kaloon ka soo hadli doonaa qayb la yiraahdo patellofemoral syndrome oo jilibka bahashaas yarta oo jilibka korkiisa anatomy haddaan dib ugu soo laabto one more time anatomy haddaan ugu soo laabto laftan waa maaragta thigh bone la yiraahdo waa lafta kor ka timaado femurka tan shin bone la yiraahdo waa tibia hoose ka timaada laakiin iyagoo dhan mid ka korreeyo kneecap luqadda ingiriiska lagu yiraahdo laakiin waa patellar human anatomy markii la sharaxayo ma caafimaadka patellar la yiraahdo laftaas yartaahu xididkaas muruqaas weyn inuusan lafta hoose ku dhegin ay ka celidaa hinji ahaan ay u shaqeydaa sidaan inuu muruqaas uu socsoco kale ka shaqeyda marmarka qaar ayadaasaa dysfunction ku dhaca oo shaqeyo weyda ama maaragtay rheumatism hoosta ka gasha patellar femoral pain syndrome la yiraahdo iyadana waa kasoo hadli doonaa isla socosho wanaagsan video dambana waxa waaye ii sheeg aan kula soo wadaagi doonaa part 4 iyo part 5 weli jilba xanuunka nooga dhiman marka channelka like gareeya share ku dadaala see you soon.